بسم الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين walaalayaal sidii aynu ku ballansanaynba maanta waxaynu ballansanayn muxaadarada cinwaankeedu yahay muxaasabatu nafs iyo fadiilatu sheekh maxamed sheekh ismaaciil oo aad wada garanaysaan insha allahu iminkana sheekha ayaan idinku wareejinaya oo haddii alla idma muxaadaradii halkaa inooga faahfaahiya ilaahay inaga dhigo aladiina yastamicuuna alqowla fayattabicuuna axsanah falyatafadal الشيخ مشكورا مأجورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعن عذاب الآخرة. اللهم أصلح ديننا ودنيانا، فرج همنا وغمنا عنا وعن جميع المسلمين. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك، واغننا بطاعتك عن معصيتك يا أرحم الراحمين. اللهم استر عوراتنا، آمن روعاتنا، تول أمرنا، أحسن خلاصنا، بلغنا بما يرضيك آمالنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ومن العجز والكسل، ومن الجبن والبخل، ومن غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبعد، إخوتي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي وأخواتي، قلبت درسيين وحوكو سابسنان دونا إن شاء الله تعالى، وموضوعي سنقول دونا محاسبة النفس. محاسبة النفس وأين وجدنا إن لا حساب تمن نفته والروح لإنه وجرته، إنه هلسه، إلهي إنه أبوري، إن لازمته أن مرنا إنه مغنانين إلى الموت. صاحبك الصداس aan kaa suulaynin ilaa geerida inta laga gaadhayo ayaa haddana wuxuu u baahan yahay in lala xisaabtamo, oo aan hoggaanka isaga loo dhiibine la maamulo. sababta oo ah naftu waa cadow inagu jirta, waana ibliis saaxiibkeed wey. nafta iyo shaydaanku waa isu rafiiq, inay dadka ambiyaana heshiis bay ku yihiin. labadaba cadaawadda ay bini aadmiga u qabaan ilaahay wuu ka warramay subxaanahu wa tacaala. ilaahayna subxaanahu wa tacaala marka uu ina abuurayay ujeeddo iyo qasdi uu inoo abuuray baa jiray. macno daraan iyo ujeeddo la-aan rabbi inooma abuuran. isagoo qur-aankiisa kariimkaa arrintaa kaga warramaya ilaahay wuxuu yidhi سبحانه وتعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون.
isagoo ilaahay makhluuqaadka la hadlaya wuxuu aayadda qur-aanka wuxuu ku yidhi ma waxaa moodeen inaanu idin abuurnay cabatan inaanu idinku maaweelanaynay oo cayaar iyo ujeedda la-aan inaan idin abuurnay miyay idinla ahaatay baa ilaahay subxaana wa tacaala la mar kale ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku yidhi ayaxsabu linsaanu an yutraka suda ayaxsabu linsaanu an yutraka suda bini aadmigu wuxuu u haystaa in oo la abuuray kabacdina la iskaga tegay oo aan cidi riqaabaynayn oo aan cidi ka warhaynin oo qasti iyo ujeeddo ka dambaysa abuurtiisu aanay jirin oo macno daraanun u noolow la yidhi ma sidaasuu moodayaa baa ilaahay yidhi taasna ilaahay subxaanahu wa tacaala waa ka nasahan yahay inuu makhluuqaadka abuuro iyada oo wax allaaliyo wax macnoo ka dambeeya aanay jirin idan haddii ilaahay subxaana wa tacaala ujeeddo inoo abuuray ujeeddadiina rafiiqii inagu wehelinayay iyo saaxiibkii inagu wehelinayay ee inagu lamaana aanu inagu caawinaynin waxaa lagama maarmaan noqotay inaan labada saaxiibka ah oo baayac mushtariga ah oo shuraakada ahi sida ay u xisaabtamaan si ka daran in naftii bini aadmiga loola xisaabtamo axad kasta oo nafta ku jirta la xisaabtama oo hoggaanka u qabta wuu ku liibaanaa axadka nafta ku jirta heegga usii daayaana wuu ku fasahaadaa wuu ka halaagsamaa inaga bakti dhabaaq hadda imaam shaafici radia allahu tacaala canhu caalim weyn buu noqday aqoontii iyo cilmigii ilaahay barana ummadda islaamka oo dhan baa ku intifaacday imaam shaafici wuxuu ahaa wiil yar oo agoon ah oo aan aabba lahayn hooyadii baa soo korisay maca dalik waxaa la yidhahdaa imaam shaafici jiis buu ahaa adin buu curyaanka ah haddana wuxuu ahaa baa la yidhaha bukaan maradku laazimay oo muddo dheer xanuunsanayay haddana taariikhda uu islaamka dhexdiisa uu ku leeyahay iyo karaamada uu ku leeyahay iyo cilmiga iyo manfacada ummadda islaamkaa u dhigay axad weliba wuu ka dheragsan yahay imaam shaafici markii la weydiiyey oo la yidhi maxaad martabadan ku gaadhay maxaa ku caawiyey inaad aqoon intaa la eg yeelato maxaa ku caawiyey wuxuu yidhi imaam shaafici raxmat ullahi calayh laba masalo oo la xisaabtanka nafta ku saabsan ayaan ka faa'iiday buu yidhi laba maahmaahood oo dadkii hore ku maahmaahi jiray ayaa naftayda raad weyn ku yeeshay buu yidhi baladoo fiirsa waa maahmaah iyo miisaal iyo tusaale dadkii hore ay ka tegeen ayaan ku cibro qaatay buu yidhi oo aan miisaal ka dhigtay markaan labadaa masalo miisaal ka dhigtay oo aan ku cibro qaatay ee aan ku dhaqmay ayaa naftaydu waxay heshay dariiqii saxa ahaa iyo dadaalkii runta ahaa ayay qaaday labadaa masalo ee noloshayda khatasayrkeeda iyo dariiqa ay marayso wax weyn ka bedelay isagoo hadda ilmo yara wey oo da-yar wuxuu yidhi maahmaahda koowaad waxay ahayd annafs in lam tushgilha bilcibaada tushgiluka bilmacaasi annafsu in lam tushgilha bilcibaada tushgiluka bilmacaasi nafta kugu jirta haddii aanad u qorshaynin oo aanad ku mashquulinin cibaadada rabbi iyo wax danteeda ah waxay kugu mashquulisaa macaasi sideeda naftu horta ma nasato qof kasta oo adduunyadaa jooga wax unbuu ku mashquulsan yahay marka waa laba ruuxun midkood waa mid haalik linafsih iyo nin baayicun linafsihi wa muctaqih waa nin naftiisa halaagaya oo waxa uu ku mashquulsan yahay halaagga naftiisa ay tahay iyo nin intuu naftiisoo la iibinaya soo gaday dabadeedna xoreeyey labadaasuu rasuulku ku tilmaamay
marka haddii aanad nafta ku mashquulinin cibaadada ilaahay oo aanad qorshe iyo brograam uga dhigin ayadaa qorshe samaysanaysa ma nasanaysa marley oo iminka intaynu halkan fadhino ummado badan naftii ku jirtay waxay ku mashquulsan tahay ama sheeko khayaaliya ama xan bay ku mashquulsan tahay ama telefoon bay tv bay daawanaysaa ama macaasi bay ku qarqoon tahay haddii markaa nafta adigu aad u qorshayso cibaadada rabbi aakhirka way la qabsanaysaa marka mahdaas aad iyo aad bay ii ta'tiirisay buu yihi imaam shaafici annafs in lam tushghilha bilcibaada tushghiluka bilmacaasi marlay haddaanay nasanayn baan go-aansaday oo mar walba ay mashquul un tahay wixii danteedu ku jirto inaan ku mashquuliya baan go-aansaday buu yihi wixii danteedu ku jirto xadiidna waa kii ahaa min xusni lislaami almar tarkuhu maa laa yacniih qofka islaamnimadiisa wanaageeda waxaa ka mid ah inuu qofka bini aadmigii waxaan dani ugu jirin uu faraha kala baxo min xusni lislaami almar'i tarkuhu maa laa yacniih qofka muslimka ah islaamnimadiisa waxaa wanaagiisa ka mid ah inuu waxaan dani ugu jirin uu ka baxo oo wixii dani ugu jirto fi dunya waalaakhira inuu nafta ku mashquuliyo mahmahdaas aad iyo aad baan uga faa'iiday buu yihi waxaanan go-aansaday waxaan cibaadada rabbi ahayn iyo waxaan ilaahay raalli ka ahayn naftayda inaanan mashquul kaga dhigin mahmahda labaad aan aada uga faa'iiday waxay ahayd buu yihi imaam shaafici raxmat ullahi calayh alwaqtu kasayf in lam taqطachu yaqطacak alwaqtu kasayf in lam taqطachu yaqطacak xilliga iyo waqtiga aad haysataa waa sida seefta oo kale haddii aanad adigu goynin isagaa ku jaraya alwaqtu kasayf in lam taqطachu yaqطacak waqtigu waa sida seefta inaad adigu kaga horaysood goyso iyo inuu isagu ku gooyo labadaa mid un weeyaan masaladaasina aad iyo aad baan uga faa'iidaystay buu yihi imaamkaas oo waxaan mar leh haddaanu waqtigu ku sugayn oo adiga kuu dabranayn oo waxaad adigu leedahood saa doonto ugu tasarufaysa aanu ahayn ammaano kula joogta uu yahoo kaa tegaysa waxaa munaasab ah waqtigaa aad haysata inaad ka faa'iidaysato mar haddaanu dib kuugu soo noqonayn saacad ku dhaaftay aan dib laguugu soo celinaynin adigana xisaabtaada ay ka go-aantayo noloshaada waxaan go-aansaday intuu igoyn lahaa in anagu gooyo inuu isagu igooyo waa inuu macno daraan igu dhaafo inaan anigu gooyaana waa inaan ka faa'iidaysto oo waqti macna ii sameeyo oo waxay anfaca aan ka goosto inaan waqtigii ka dhigo marka waxaan go-aansaday buu yidhi inaan waqtiga aan isugayn ee ammaanada igu ah ee igoynaya ee haddii aan ilaabana murugada iyo tiiraanyada iyo urkutaalada igaga tegaya ee cimrigaygiina gaboojinaya anigoo wax allaaliya waxaan ka faa'iidaystay jirin inaan ka faa'iidaysta baan go-aansaday deedna isagoo da-yar oo carruur ah oo 18 jir ah ayaa wuxuu bilaabay inuu ta'liif qoro oo ummadda islaamka u fatwoodo oo diintii islaamka uu fahmo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku anfaco ummadda islaamka oo idil marka nafta in lala xisaabtamo oo aad xadhig iskaga xidhiyo dabar adag qofka muslimkaa faa'iidaa ugu jirta sababta oo ah ilaahay wuxuu ka warramay naftu inay khabiisad noqoto haddii aan la tababarin naftu inay xumaato oo fasahaadka ay u boholyowdo oo xumaanta ay aad iyo aad u jeceshahay haddii aan dabarka lagu xidhin ilaahayna subxaanahu wa tacaala wuxuu tilmaamay naftu 3 martabay martaa nafta ilaahay nagu abuuray 3 darajay leedahay naf waa nafta aan la tarbiyaynin oo aan la edbinin oo aan ilaahay la barin oo ilaahay subxaanahu wa tacaala tawxiidkiisa iyo cibaadadiisa aan la barin oo cibaadada rabbi aan lagu barbaarinin hadihi nafs waxaa la yidhaahdaa annafs alammaarati bisuu waana nafta bini aadmiga badankiisa ku jirta ilaahay wuxuu yidhi ina annafsa laammaaratun bisuu'i ila maa raxima rabbi ina rabbii lagafuurun raxiim nafta bini aadmiga ku jirtaahu laammaaratun bisuu waa siiqat lmubaalaqa
ونفط وشيء آد أغم من أبضسة إن حمانته فرطه قفك أي كجرت روح حنبارسنة نفط كجرته كما عاوز عبادة ربه وأمارة بالسوء آد بأوفرتا حمانته طبعا نفتي السداء أهيد إلهي وحو كورمي إنك جرايسمي كرتو أو الحكمين كرو أو هلك أي نفس الأمارة بالسوء أهيد إلا قدقي كرو النفس اللوامة تانا قرآن كاشيغي النفس اللوامة ونفت قفك مؤمن كأكو جرته وحي يسبب شيء نفس الأمارة بالسوء اللي يلي حمايتها فارق جرتي هذه قفك مؤمن كي هو حكمها أقبته ومدل لازمية حق إلهي ويتري سنتا وواحتببر قانا كربا إلهي سبحانه وتعالى مركا لا تببره حمانتي ويكوان تودا ومعصيدي ويكتشوك ستا ومعصيدا ويديدا وحدي لا تببره أو خيرك إيا سماها لغو تببره وحاني نقطة النفس اللوامة markay heerkaa taagan tahayna way fiican tahay ilaahay baana ku dhaaranaya shar ay leedahay darteed oo ilaahay wuxuu leeyahay laa uqsimu biyawmi alqiyaama walaa uqsimu binnafsi allawaama waa nafta mu'minka baa la yidhaha oo maxay lawaamo ku noqotay qofkii mu'minkaa markuu ku tabco oo uu tacab geliyo oo muddo tababaro oo macaasida rabbi ka hor joogsado oo khayrka ku ababiyo khayrkaasay la qabsataa markay khayrkii la qabsato ay ku tababarato hadday kaa weydo way kugu canaanataa baa ilaahay subxaana wa tacaala naftii ku amri jirta xumaanta haddaad in yaroo tacba intaad gashato marka hore adigu aada xakamayso khayrkaasay marka dambe u heshataa hadday inuu macaasi aanay kugu oqoon kugu aragto cakuyo waybay leedahay fartay dhexda ka qaninaysaa way ku canaananaysaa maxaad waxaa inoo gelisay maxaad hadalkaa macsiyada u tiri maxaad waxaa xaaraantaa u cuntay maxaad xaaraanta ii cunsiisay bay ku odhanaysaa way ku qiiro gelinaysaa baa ilaahi subxaana wa tacaala naftii maxaan ku dhahdaa ahayd ammaara bisuu ee xumaanta kuugu gargaari jirtay markaad ayaamo keliya aada u sabirto oo khayrka iyo wanaagga ku xakamayso ilaahay wuxuu kuugu gargaarayaa inuu kuu ababiyo oo kuu tababaro ay jaraha aqbasho oo iyadii markaa khayrka kaaga horraysa baa ilaahi subxaana wa tacaala waxaana la yidhahdaa nafta sidaasa waa nafta mu'minka ku jirto allawaamah baa la yidhaha waa canaan badanay oo axadka ay ku jirto way canaanataa khayrkay ku canaanataa sida culimada tafsiirku ay leeyihiin markay heerkaa gaadho ay sidaa ku noolaato ee qofkii ay ku jirtay iyo isagii ay iskaashadaan maalinta ay naftu ka baxayso naftaasi waxay u bedelantaa nafta la yidhaahdo almutma'inna النفس المطمئنة أي نقطة ونف تعبكي يدذاكي أي سوقبة رالك إلى هنا الرالك النغضي رضي الله عنهم ورضوا عنه كوي الليلي بيكبرتا مركزا ملائكة الربيع نفط قاريسة مركا أي قلت ما ظن نفتي اللوامة داحين أي نفط قاريسة أي لحظ ليانو وحي كورنيان يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي نفتي تببرتي وإلهي دينتي سي حق كنت تببرتي مركا أي جيرد أتماده مقعات سيقانا ليس ليلاهضه النفس المطمئنة ونف أورور دمبوحر هل كان سأورور أبو دماضي ساعدي أبا المريضة أبو الله ميسبه إلهي سبحانه وتعالى نفط haddii aada istidhaahdo la rafiiq oo bal waxay kaa dalbanaysa si oo bal waxay doonaysa soo tus oo bal si ay u waaya aragto macsiyada qaraarkeeda soo tus oo bal halkay doonaysa ka soo wareeji markay daasho iyadaa iska soo noqon naftu sidaas ma aha bay idhahdaan culimadu naftu hadba adigu beertaa daajiso ayuunbay dhadhankeeda la qabsataa ama ha qanaanaato ama ha macaanaato nin sheekha oo shaacira wuxuu lahaa وخالف النفس والشيطان وعصهما وإن هما محضاك النصح فاتهم ولا ترم بالمعاصي كسر شهوتها إن الطعام يقوي شهوة النهم النفس كالطفل
إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفضمه ينفضم وخالف النفس والشيطان لبدا اسكو دنا مريه وخالف النفس والشيطان وعصهما نفط هي الشيطان تراها كقادن عاصي كل نقم وإنهما محضاك النصح فالتيم هذي لبدو كقما ويليان وحقناك أو كران اسكسنا ما توحكا إلهي والغفور الرحيم موكو سامحي دونا أما إلهي عذاب كاغو كفل مايو وانت يرد بدامي وحكا وانا ايغنا هديك ويرحضان لغيابا أذيقوا معاصدي قعنت كل شرين جيريدي مقوتي ماذا نفتتهم قرية واحد تلاحظا ويا أك إنو إلهي كان سامحي دونا ويا أك أذيقوا توبك يعني بين الدمان دونتو ويا أك إنا نفتة كتلا ساج كدك ومركي معاصد الله مراسك هو يردي ريان أيضا عنا إلهي لبداف كي سكرات سان هآمن الشيطان كي نفط هذا يكو يرافان يرأيك بالقراري معاه وحيلا أنك كسوا أن توبي دونوه وحكوله ولا ترم بالمعاصي كسر شهوتها معاصدها الرادين من أذيقوا إسله نفتنا حيسة شبينية sababtoo macsiyada iyo raashinka la cunaa isku mid oo ninka caloosha weyn ee hunguriga badan raashinka marka loo badiyo raashinka badan kama qaada inuu raashinka sii noocay caloosha way ku sii weynaataa macsiyaduna waa sidaas oo kale ruuxa macsiyada nafta ku tababara midda ka dambayso may koodaysa balkaana ay dhadhansiin oo macsiyadu darajaad bay kala leedahay kala dambeeya marka mid tusto ayuu albaab kala ku furmaya macsiyaa kaasa hadana koodaysa balkaana dhadhamiyay ka kala ay dhadhansiin marka sallallahu warta ka wada dhadhamisay ka kalena ha aragto saa u wado kulba mid ay kugu dhiibayso ayay marka dambe meel aan ka soo noqonaynin oo mawjadaheeda aan ka dabaalan karaynin ayay ku keenaysaa naftu hadba waa sidaad barto oo wuxuu sheekhaas an-nafsu ka-dhifl naftu waa sida ilma yaro dhalaana ilmaha yaraa dhalaanka intuu fudimhu yanfadimi inta uu yar yahay haddii naaska hooyo laga guriyo wuu ka guraa النفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفضمه ينفضم هدي هذه المها كبر بعد الناس كهويدا وأود يسؤون إلى أن عقلي يا لنا يوم وإسكال قبص الأمر وعقل جياشنا كما دخوده كما سوتشوك صدو كما مشيخ صدو هذا نوع هو الناس كيسون بورس وعقل لا لكن كانوا كرشد لهن هذا الناس كي كتشوكسو أو كجورو مركو عقل جياشات تراك عليه هذا الدمي وديده يا علمه وسيدا سو كلو نفتا انت على المعصيه ما تصين هداد كجوجيسو وحمانتيدا iyo ina cara ilaahay ka dambayso iyo la isku ciqaabayo waxa soo dhan hadii aad ku tababarto markay aragto ka yeelimayso in dhadhamiso way ka maagaysaa laakiin hadaad tiraahdo ku tababar horta macaasida oo inta yartahay hawaaya aragto ka bacdi baad tooba keenaya arrinkaas uu la sii fidaa nafa mana soo joogsado nafta iyo shaytaan baana isku meel la dhigay nafta sidaasa ilaahay wuxuu ka warramay inay cadowgeena tahay sida ilaahay baa uga warramay shaytaanku inuu cadowgeena yahay marka cadowgu waa lagu noqdaayo cadow hadhow haddii la tababaro ku jaraysmi kara iyo cadow aan marnaba heshiis kula qaadanayno ibliis ah marka ilaahay wuxuu leeyahay labada cadow baa leedihiin laba dhinac kama wada dagaalami kartaane cadowga ku jaraysmi kara la soo had si dagaalku jiha keliya uu kaaga furnaado ibliis dhinaciisa وإلهي وحوله سبحانه وتعالى يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا شوف هذه الآية إلهي وحوله إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا نقطنا إلهي وحوله إن النفس لأمارة بالسوء هذا لبدا سكوه الشيان dagaal laba jiha baa kugu furmaya dagaal laba dhinaca qofna laba dhinac kama wada dagaalami karo ma jacala allahu lirajulin min qalbayni fi jawfi ruuxna laba qalbi ma leh dad cadow ku jeesata ka kala dhabar jibin kugu samaynay marka labada cadow mid waad xaslan kartaa waad qaban kartaa oo waad tababari kartaa marka waxa ku egba ilaahay ilaahay subhanahu wa ta'ala inaad hal cadow isku soo reebto hal jiha kaliya waad ka dagaalami kartaa shaytaanku waa cadowgaaga إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير ساسا إلهي سبحانه وتعالى رسولكنا إنبضا صلوات الله والسلام عليه ضدك إسلامك وحو كجهي لحسابتك النفطة أيو كتب وبري نبيك عليه الصلاة والسلام حديث
nabiga salawatullahi wasalaamu caleyh laga warinaya waxaa warinaya shadaad bin aws saxaabiga la yidhaahdo ayaa xadiidkaa warinaya wuxuu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam alkayisu man daana nafsahu wacamila lima bacda almowt waalcaajisu man atbaca nafsahu hawaaha watamanaa cala allahi alamani xadiidkaa macnihiisu waxa weeye alkayisu man daana nafsahu waxaa ruux caqlile lagu tilmaami karaa caqligiisu uu shaqaynaya lagu tilmaami karaa axad kasta oo naftiisa qalin iyo bugdama wata man daana nafsah ninka naftiisa xisaabiya wacamila lima bacda almowt nolosha runtaana usii shaqaysta waa geeri dabadeed ninkii usii shaqaysta oo adduunyada tan ka dhigta uun daar alcamal ee aan u arkin inay tahay daar aljaza taasu caqli buu leeyahay buu nebigu uri calayhi salaatu wasalaam waalcaajis waxaa axmaq ah oo doqon abaa ilaahay yidhi nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam man atbaca nafsahu hawaaha ninka naftiisu waxay tidhaaba he yidhaahdo oo ku raaca oo naftiisuun dabagala hawada ay u sawirto iyo sharaxa ay siiso iyo dalabka ay ka dalbataba u sallaxa watamanaa cala allahi alamani isagoo sidaa ku sugan oo naftiisa hawadeedu ay sidato haddana ilaahay wax ka rajaynaya naftii baaba wadato hoggaankii haysa haddana ilaahaybu umniyaad iyo ididuulooyinka qaba qofkaasu caqli male baa nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam sayidina cumar radia allahu tacaala canhu oo ka mid ahaa asxaabtii waaweyneed ee rasuulku tababaray wuxuu odhan jiray xaasibuu anfusakum qabla an tuxaasabuu war xisaab baa idin sugaysa qalin iyo buuq baa idinka dambeeya intaan xisaabta loo soo fadhiisan idinku naftiina sii xisaabiya wazinuu anfusakum naftiina qiimeeya oo idinku miisaan saara qabla an tuusanuu intaan la idin miisaamin naftaadaa la miisaami doonaa ma naf liidata oo ilaahay agtiisa bilaa meeqaan ku abaa kugu jirta mise naf karaamaysan oo ilaahay raalli ka yahay baa kugu jirta ifka intaad joogto isweydii hadhow naftaada miisaan baa la saari doonaa waa la karaamayn ama waa la ihaanayn doonaa marka intaan naftaadu ihaano mudan oo ilaahay aanu aakhiro ku ihaanaynin amaama almaxshar khalqigu meeshay ku wadataanihi lagu ihaanaynin war maantaad adduunyada joogtaa maanta naftaada darajadaad siin lahayd kasii shaqeey buu yidhi cumar radia allahu tacaala canhu wazinuu anfusakum naftiina meeqaan u yeela oo makaan dhiga ay hadhow ku faraxdo qabla an tuusanuu intaan la idiin miisaamin inaad naftiina lasii xisaabtantaan fainahu ahwanu calaykum fi lxisaabi qadan berri xisaabta laydinoo iman doono baa kuu fududaan doonta buu yidhi haddaad maanta sii xisaabtanto berraa xisaabtu kuu fududaanaysa an tuxaasabu anfusakum alyawm inaad maanta naftiina xisaabisaan xisaabta berri ayay kuu sahli doontaa waxaa isu sii qurxisaan buu yidhi watazayanuu lilcard maalinta bandhigu iman doono naftaada quruxdeeda hadda kasii shaqe yawma alcardi alakbar oo ilaahay leeyahay yawmaidin tucraduun laa takfaa minkum khaafiya maalinta ilaahay la hortegayo ee naf waliba ay jeceshahay inay sharaf iyo karaamo yeelato ee naf waliba ay jeceshahay in xagga ilaahay uu macno ku lahaado war maa halkaa laga sii qaataa darajada cumar leeyahay adduunyadana tacabka lagala tagaa aakhira waa daar aljaza laysa daar alcamal aakhira daar alcamal maaha waa daar aljaza halkana waxaad darajadaad yeelanayso laga sii kasbadaa buu yidhi sayd cumar war naftiina sii xisaabiya intaan la idinla xisaabtamin sidaasuu leeyahay imaamkaa weynina marka aada iyo aad ayay dadkii saalixiinta ahaa ay uga warrameen in qofka bini aadmigihi aanu naftiisa isku sii dayna xasan albisri wuxuu odhan jiray marka uu akriyayo aayaddaa markuu macnaynayo walaa aqsimu binnafsi allawaama aayaddaa markuu akriyayo waxuu leeyahay laa yulqaa almu'minu ilaa yucaatiba nafsah xasan albisri markuu aayaddaa macnaynayo wuxuu yidhi waxay aayaddanu tilmaamaysaa inaan qofka mu'minka ah aanad la kulmaynin haddii aad la kulanto mar walba naftiisu canaan kula taagayin ou leeyahay maada aradtu bikalimatii warni hadalkii caynkaa buu xisaabtamaya isaga iyo naftiisu hadalkii caynka ahaa tolo maxaan uga jeeday cuntadii caynka ahayd tolo maxaan u cunay mar walba naftiisu la xisaabtamaya ou daba taagaya
إمامك قتادة الله يرحمه اسمه تابعها آية القرآن وكان أمره فرطا إلهي أوليه وحليه أضاع أكبر ضيعة وأضاع نفسه شيء يقول قيمة فضنا نكل قليه وكان أمره فرطا وحلقوا رضيا شيء يقول قال السنة نضيعه ومحيك يوحى ضيعه أضاع نفسه نفتي سيب ضيعه وحلقيها بابول وعسى مع ذلك يسوي نفتي سيب ضيعانتها أن تجده حافظا لماله مضايعا لدينه وحضر كيسا نفتيسي مالكيسي إلى لنيا مالك آلي آدو قدي فوينها مالكيسا انتا سو قسندود بو كحدا انتا سو واشمان بو سميا انتا سو الباب وكسر ريو سواق فلا مالك وو إلاليا هنتذا وو إلاليا لكن دينتي ما إلا دينتيسا ما إلا شضو مضايعا لدينه لكن دينتيسا دان كماله دينتيسا وحالي وحو قيمة يا مجره إمام حسن البصري مركل وحولها إن العبد لا يزال بخير ما كان له واعظا من نفسه وكانت المحاسبة من همته قفك أدونك مسلم كيهم مرنا بخير كمزوله انت او حيسته شيء وانينايه او نفتيسه إلى خير وقارين نفتيس وانسه هل كي أهاجرتي الأمارة بالسوء أي نفتيس يسب الدشو الواعظة مدواني ليس قفك مؤمن كيم ورقي خير كمزوله انت ونفتيس الله حساب تميه هم يجيسوا ياي محاسبة نفسه انه نفتيس مر والله حساب تمه وقبلكم مركو دعو انتو سريرتا تقو قلن يبو قاضو وإلى أفر إلى تنكي ساعة إن صومر النفي هاي محينو قبرني محينو فائدني محينو خسارني محينو معصية سميني محينو خير سوكرني إمس حرفو خير إنو سوكرني إمس آيضود القرآن إنو أقرني إمس ركعدود أما إمس صلاةود أو سنة أيينو تكني إمس قفو بينو خير كوشيغني إنو ساعة حساب تمو سيده دكان كيس شلفس كيالا هاد بإنتو كيبيو انت صودا صدود تمان دانان تيبيه انت صوب بسلاني بيه انت صوب محياني بيه وقرا بوك بولي هاي بوكا ديلي بالله يراهبا بوكا ديلي هاي انتو كربا هدنا بوكا رسمي هدنا كوريتي هابينكي لما تشيربو دكان كيس حسابيا مالولبا مرو بوكا هوركو قرا يوحي كبحي يوحي دين كبحضي يوحي راس المال سوقلي يا مرو هابينكي مركا دادكو كلا دريران انتو بوكي سوق هذا بوك كلاه كنظافة بدنه كيراشم بدنه عن مسحنين انتو سوق هذا واحد ندي بوك هرا وحساب ترسبيقا نفتين ونحل بوك مرحا نفتين وجبت الله حساب تمر إنه يلي ورسمال كفنت يا عينو هيسنه ولا حساب تنه وحلا عليه قف بنهار ميوماتين وجبت وهبين انتو نفتي يسوي سلاش وراد ورشيه مالتها ونقبلين وهير قلي يينا نوهير قلي دبو لا حساب تمر إنه مجره وأنا اسكس عطوه أو اسك أنبض وعندنا لدونا يينا نقطه النفس المطمئنة درجة أي كان بس إذا تذكر صالحين أي نفط وقود تبعين إنه أنا كنت تبعين نفتيني أي واحد نفرنا إنه هذا ذكي حاجات شنو تاني بقى يعني حاجات سنين بقى تاني بقى حساب أي نال لتبتشوجين قالت كذي يصير هذه ما بكلوجين بقى ما أنت واحد نسميني شرية خير واحد نسميني سيدا يوكل بالناير إنه ما حساب سنة habeenkii haddaad guriga ku noqoto aad xisaabiso waxaa kuu soo bixi lahaa inta dembiyeed gashay waxaa kuu fududaan lahayd inaad markiiba ka tooba keento maxaa saacaddu marka waagu baryo siday u socoto ma garanaysid maanta inta kelmadoodaad ku hadashay kelmadahaad ku hadashay imisaa khayr ahaa imisaa shar ahaa oo nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi man kaana yuuminu billahi walyawmi alaakhir falyaqul khayran aw liyasmut ninka ilaah هي مالتها قيامين يمان يسر رميسا فليقل خيرا أو ليصمت عن يامانت إنه قلت له وهبيك مركو قراه ديبو حساب تما وإغيري وجيني عودن ولا حصوصا كرا إنه قلت له وين إسكابت علينا أو إسكابت لنا وحاسود أن الديوان كان يكون قرين وحاسود رقيبي عتيد با قرية قال قرينه هذا ما لدي عتيد markaasa malagii intuu qiyaamaha keeno kitaabkeeni
ayuu ilaahay hordhigay oo leeyahay hada ma ladayya catiid ilaahay wixii aad ii dirteen fulaan ka soo baray ama fulaana ka soo baray waa kan markaasuu qofka kitaabkiisii akrisa la odhanaya iqra' kitaabaka kafaa binafsika alyawma calayka casiiba markaasaa dadkii aan adduunka ku xisaabtami jirin waxaa ku soo baxaysa waxaanu filanayn ayaa meeshaa kaga soo baxaya markaasuu odhanaya ma lihada alkitaab laa yugaadiru sagiiratan walaa kabiiratan ila axsaaha wawajaduu maa camiluu xaadiran walaa yadlimu rabuka axada kitaabkii markuu arko ayaa daqiiqad iyo saacad iyo maalin iyo usbuuc iyo shahri iyo sanad buu xidhan yahay oo loo ururiyey wax allaaliya wuxuu sameeyey hadduu meel mugdiyo joogay meel madow hadduu joogay iyo meel iftiina hadduu joogay wixii oo dhan baa ku qoran buu arkaya markaasuu isagii isla yaabaya ule waa maxay kitaabkani wax yar iyo wax weyn midna ma dhaafina markaasaa wuxuu arkaya sharki iyo khayrkiina sharkiisu badan yahay faman thaqulat mawaasiinuh faulaa'ika hum lmuflixuun waman khafat mawaasiinuh faulaa'ika aladiina khasiruu anfusahum fi jahannama khaaliduun saasaa markaa la odhanaya ilaahay markuu kitaabka qof walba u dhiibo xisaabtiisa arko qof waliba ayaa ilahay wuxuu odhanaya bal miisaama camalkiina faman thaqulat mawaasiinuh ninka khayrkiisii batay faulaa'ika hum lmuflixuun waad liibaantee ku bishaaraysadaa la odhanaya waman khafat mawaasiinuh ninka miisaankiisii khayrka ahaa uu hoos u dhacayna faulaa'ika aladiina khasiruu anfusahum cid allaaliya cid khasaaraha maanta la qaybsanaysaa ma jirto isagoo keliya khasaaraha loo raacayaabaa ilahi ilahi subxaana watacaala wixii kitaabkaagaa ku yaala ee khasaaro ah cid bini aadmi oo kula qaybsanaysa walaa aabbaha walaa hooyada walaa ehel walaa qaraabo walaa ubadkaaga axad maanta kula wadaagaya wixii buugaagaa ku yaala ma jiro haddii miisaankaagii fududaaday naftaada eerso laa talumunii waluumuu anfusakum baa iblaysna odhanaya markay yidhahdaan iblays adaa noolahaa yodha naftiina canaanta aniga ay canaananin idinka halkaa isdhigay buu ku odhanaya marka ikhwati fillah maantaynu adduunyadii joognaa adduunyada aynu bugaagta badan u samaysanina waa laga tegayaa cidaan abaalkuugu qabin baa dhaxli doonta waxa raasanaalku ah waa adig iyo naftaada wixii qabriga kula gelaya waxaa fiican qofka muslimkaa ilaahay wuxuu yidhi aladiina yastamicuuna alqawla fayattabicuuna axsanah mu'miniintu waxa weeyaan waa dadka intay hadalka dhagaystaan kala shaandheeyo kii anfacaya ka qaata intuu hadalka dhagaystaa kii anfacale buu ka qaataa baa ilahay subxaana watacaala war uun weligeen wadi mayno muxaadaro uun fadhihi mayne bal muxaadaradaa timaadaba hal eray oo ku anfaco oad dhaqan geliso ka gunto ta kalee timaadana hal eray ka faa'iido ku dhaqan markaad sidaa u wado naftii way kuu jaraysmaysaa laakiin haddii aad timaado uno aad sidii dadkii munaafiqiintaa marka la baxo aad tidhaahdo maada qaala aanifan horta wadaadku muxuu ka hadlayay sifada waxa iskale munaafiqiinta qofka mu'minkii marka uu majliska joogo buu hadalka qalbiga u sii daaya munaafiquna waa iska dhegaystaa higiraac buu noqdaayo haddaw marka la baxo ayuu dadka weydiinaya waxa odhanaya horta maan fahmayne wadaadku muxuu ka hadlayay oo munaafiqiinta markay golaha nebiga yimaadaan salawaatu ullahi wasalaamu caleyh ee ay wacdiga rasuulka dhegaystaan majliskuun bay camiri jireen ka bacdi markay dareeraan ayay dadka muslimiinta ee kale waxa odhan jireen maada qaala aanifan horta goor dhaweyd muxuu ka hadlayay nebigu qofka mu'minkii intuu meesha fadhiyo buu wax ka faa'iidaa waqti baa inagu socda waqti baa soo bixiseen marka qofka mu'minkii inuu wacdiga iyo waanada wax uun ka faa'iido uu dhaqan geliyo inta noloshiisa anfacda ayaa fiican ikhwati fillah hada ma uqasir kalaami wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu